السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. anigoo ah khaliif cadale ahaan waxaan ka soo horjeestay sheekada nimanka isaaq wadaan maxaa yeelay waa loola ganacsi ee arrintaasi mid diin shaqo kule maahan. loolanka wuxuu u dhexeeyaa shirkadda Hormuud Telecom ama Salaam Bank iyo shirkadda Dahabshiil. amiirkeena cusub wuxuu rabaa inuu mamnuuco adeegga ATM Salaam Somali Bank, laakiin sheeko aan yeelayno maaha. Dahabshiil waxay siisay lacag dhan $500,000 horena waxay u xirtay adeegga SAD service ee shirkadda Hormuud iyo internetka, iyadoo arrintaasina lacag ku bixisay. Soomaaliya waa qabiil, daashiibna ka yeeli mayno inay maalin walba tiraado ganacsiga haguye hala burburiyo. annaga waxaan ku walaalownay inaan diinta alle u dagaalanno, ummadda ku maamulno. bal fiiri, maanta ATM muxuu dalka iyo dadkeena u dhimay? waa horumar qof inuu bangigiisa dibadda uga shaqayn jiray markuu dalkiisa yimaadana uu shaqeeyo. ATM Salaam Somali Bank lama xirayo, waa sii shaqayn doontaa insha Allah. wixii soo kordhana waa la isla arki doonaa. aniga hadda ma rabo inaan ku iraado Dahabshiil waxaa xiriirka al-shabaab u qaabilsan hebel iyo hebel, laakiin inay iyaga nala soo xiriireen ayaan ku xaqiijinayaa inay lacagtaasi bixiyeen. waa ku xaqiijinayaa fikirkan waxa ay la qaba rag badan oo xarakada al-shabaab oo laf dhabar muhiim u ah sida Sheekh Xasan Afrax, Sheekh Farxaan Maxamed Kaahiye, Sheekh Mahad Karatay iyo anoo ah Khaliif Cadale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.